in la tirakoobo shaqaaluhu waxay idiin suurto gelinaysaa kow inaan ognahay tirada iyo tayada aan haysanay inta ay leeg tahay labo inaan u diyaar garowno inaan sii dhisno tayada loo baahan yahay saddex inaan u diyaarinno shaqaalaha rayidka siday ula falgeli lahaayeen mustaqbalka iyo adduunyadan hore u socota afar inaan nahay dawlad ka dhabaynaysa arrimaha ugu muhiimsan oo ahmiyadda siino oo ah isla xisaabtan macnaheedu waxay tahay waa inaan ognahay cidda noo shaqaysa meesha ay ka shaqayso waxa ay mas'uul ka tahay waa inaan ognahay xuquuqda ay leedahay waa inaan ku baraarugsannahay inay naga go'an tahay inaan keenno xuquuqdooda hawshan iyada ahi marka waxay ka mid tahay howlaha badan oo dalka laga hayo ay ka mid tahay tirakoobka ciidanka lagu hayo oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku uga guuray xafiiskiisii oo u degan yahay wasaaradda gaashaandhigga sidaas si la mid ah uu tirakooba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sharafta iyo ahmiyadda u leh ummadda Soomaaliyeed ahna kuwa iyaga aan ku jiifno kuna helna nabadaanaysan waxay ka tirsan tahay isla xisaabtanka wasaaradaha iyo wasiiradu ay ka shaqeeyaan waxay qayb ka tahay in la sugo ammaanada dalka inaad og tahay haddii aad tahay wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada shaqaalaha aan leenahay inta ay leegyihiin iyada lafteedu waa qayb ka mid ah isla xisaabtanka wasiir walba agaasimo walba iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee xukuumadda iyo dawladda waxaan faraynaa sidaas daraaddeed inay la shaqeeyaan wasiir saalax iyo guddiga la shaqeeya si bilaha soo socda loo dhammaystiro haddii ilaa yidhaahdo tirakoobkan aasaas iyo saldhig u ah hufnaanta dawladnimada aan u baahannahay waa inaadan aqbalinina in lagu tunto xuquuqda ummadda Soomaaliyeed mushaarka la siiyo dadka u shaqeeya dawladda madax iyo shaqaale caadiyaba waxaa laga soo qaadaa shacab Soomaaliyeed waa canshuur laga soo qaaday qof Soomaaliyeed oo u bixiyay inuu ku taakuleeyo dalkiisa qofkaasi waxa uu rabaa laba arrin kow in canshuurtaas lagu guto waajibkii loogu talagalay iyadoo macnaheedu ay tahay ammaanadii naloo dhiibay inaan uga soo baxno sida ay tahay labo in loogu qabto adeegyo kala duwan oo ay u baahan yihiin dadkaasi iyo dhammaan bulshadoodii